daawade ma isweydiisay maxaa dhici kara haddii loo galmoodo gabadha xilliga ay caadada ku jirto? maxaa uuse saynisku ka qabaa arrintaasi? waxaa jira saynisyahano caddeeyey sababta aanay ahayn in dumarku marka ay ku jiraan xilliga caadada dhiigga aan galmo lala samayn. waxaa ka mid ah cilmi baadhisaha sayniska cilmi baadhis uu sameeyey macadka loo yaqaano public health and evaluation ee dalka maraykanka. macadkan ayaa cilmi baadhistiisa waxaa ku sheegay in xilliga caadada bilaha ah ee ay dumarku tahay xilli aada ugu dhib badan dumarka, sidaa daraadeed buu ku taliyey xilligaasi in aan lala galmoon. waxa ay cilmi baadhisuhu caddeeyeen in xilliga caadada jidhka gabadhu uu u nugul yahay xanuunada galmada ku faafa iyo bakteeriya kala gedisan, sidoo kale uu ninku halis u yahay in uu fayrasyadaasi ka qaado haddii uu galmo la sameeyo gabadha wakhtigaas ay caadada ku jirto. cilmi baadhisaha ayaa waxa ay tibaaxayaan in galmada xilliga caadadu ay dumarka ku keeni karto in ay noqdaan madhalays ama aanay waxba dhalin. sidaas daraadeed cilmi baadhistu iyo aqoonta sayniska casriga ahi waxa ay tibaaxayaan in laga fogaado xilligaas. qur-aanka kariimka ah iyo xadiista nabiga ayaa iyaguna sheegaya inaan la galmoon xilligaasi, kuwaasi oo 1400 oo sannadood ka hor markaasi caddeeyey in dhibaato ay ku tahay dumarka. sayniska casrigan qarniga 21aad ayaa caddeynaya markaasi arrintaasi inay tahay arrin saynis ah oo xaqiiqa ah. arrintan ayaa dunida tusaysa xaqnimada diinta islaamka, rasuulka iyo qur-aanka kariimka ah. la soco qeybaha kale ee qur-aanka iyo sayniska iyo Waria Channel.